magaalada Marko oo muddo ka badan 6 sannadood ay ka talinaysay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose ayaa wixii ka dambeeyay sanadkii 2013 lugaha la gashay xaalado muruga ah kadib markii ay qabsadeen ciidamada shisheeye ee wadanka ku soo duulay. ciidamadan ayaa laad ku dhuftay horumar ballaaran oo ay magaaladu ku tallaabsatay. waxay burburiyeen shacaa'irtii islaamka ee ognayd iyo guud ahaanba adeegii bulshada sida jaamacadaha, iskuulada iyo cisbitaalada, iyadoo ganacsiguna uu gawaabsi noqday. shacabka reer Marka intaas looguma ekeen dhibaatooyinka, ha yeeshee waxaa loogu daray dil, kufsi joogto ah, xarig, dhac iyo handadaad. shisheeyaha ayaa dhaqan ka dhigtay inay gumaadaan bulshada mar walba oo uu khasaare soo gaaro, xitaa lagu beegsado meel ka baxsan magaalada. Marko oo muuqaal ahaan ugu bidhaan wanaagsanayd degmooyinka gobolka ayaan maanta waxba kaga duwanayn Gaza kadib markii shisheeyuhu u joogteeyeen madaafiic har iyo habeen iska socota. ma jiro toddobaad aanan la duqayn magaalada. guryahan aad aragtaan ee docda ka daloola waxaa lagu garaacay madaafiicda ka dhacda kaaraha, halka kuwa kalena loo adeegsaday BM iyo hoobiye kuwaasoo saqafka kore ka soo galay. duqaymaha ayaa marka laga yimaado dhimashada iyo burburka waxay caafimaad darro baahsan dhaxalsiiyeen caruur iyo dad waayeello ah oo aanan weligood maqal waxa lagu garaacayo. usbuucii la soo dhaafay waxay shisheeyuhu aad u sii laba jibaareen duqaynta, taasoo keentay in shacabka magaaladu kacaan isla markaana ay dhigaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan xadgudubka. si ay shucuurtooda u muujiyaan ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn iyagoo gubaya taayaro, sidoo kalena ku dhawaaqaya halkudhigyo ka dhan ah gumaysiga. ciidamada shisheeyaha ayaa rasaas noolnool iyo madaafiic ugu jawaabay dibadbaxayaasha, waxaana jira khasaarooyin hor leh oo ka kooban dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. saasoo ay tahayna weli shucuurta dadweynuhu waa ay kacsan tahay, waxayna leeyihiin geeri wanaagsan ayaa inoo dhaanta nolosha adag ee aan maanta ku jirno. dhibaatooyinka gumaysi ee lagu hayo magaalada Marko waxaa kala siman dhammaan degmooyinka ay gobolka ka joogaan shisheeyaha oo u badan dhul dhoobay ah oo wax lagu beerto, xoolahana lagu dhaqdo. inta badan shacabka degmooyinkaas sida Janaale iyo Qoryooley waxay noqdeen kuwo la barakiciyay, iyadoo sidoo kalena la gubayo dhulbeereedkooda si ay u baahdaan una ogolaadaan gumaysiga. beerahan aad aragtaan ee holcaya waxaa gubay ciidamada shisheeye, waxayna ku yaalaan degmada Qoryooley oo gacantooda gashay horaantii sanadkan 2014. sidoo kale waxaa jira beero intan ka badan iyo dhul daaqsin ah oo ay horay u soo gubeen. isku soo wada duubo ma jirto cid ka hadasha dhibaatada xanuunka leh ee ay shisheeyuhu ku hayaan shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed.